Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada casharada taxanaha ee Class Academic and Technology. Waan ku soo qaadanay software kala duwan sida film editor-ka iyo design-ka iyo casharo kala doora. maanta cashirkeena waxaan ku qaadan doonaa software-ka la yiraahdo Adobe Premiere Pro oo aan halkan ka bilaabayno muuqaalada lagu editan gareeyo. Marka koobaad waxaan soo kicinaynaa Adobe Premiere Pro hadduu computerkeena noogu jiro. Waxaan qoraynaa PRO. halkan ayay ka muuqanaysaa Adobe Premiere Pro oo waa Adobe Premiere Pro waxaan ku yahay waxaan isticmaalayaa 15 laakiin nambaro badan oo version kala duwan waa la isticmaalaa. waan soo kicinaynaa Adobe Premiere Pro waa soo kicinaynaa maadaama uu yahay cashirka koobaad ee maanta halkan ka galayno. Calaamadan ayuu ku soo saarayaa waana sugaysaa intuu ku soo kacayo. sidaan ayuu u soo kacayaa hadda ku muuqanaysa oo wuxuu soo saarayaa box kale oo weyn oo meesha dhex ku jira. box-kan wuxuu ku leeyahay waxa soo kicinaysaa in hore ku u samaysnaa mase waxa sameynaysaa mid cusub oo haatan aad sameysanaysid. marka waxa doonaynaa new project weji cusub baan doonaynaa inaan bilaabano platform anaga noo gaaro wax ku jarjaranayno. create new baan niri. create new wuxuu ku leeyahay magacay u sameynaysaa halkeesa dhiganaysaa magaca uu sameynayna waxa leenahay waa lesson 1. casharka koowaad baan ku qornay ditana waxaan niri halkan browse ku dhufo waxa meeshaan dhiganaynaa ee soo dooranaynaa. waxaan dhiganaynaa desktop-ka niri kadibna select node. marka inta aan sameysano inta kale waxba ka bedeli mayno kadibna okay baan leenahay. waa sugaynaa ilaa uu noo soo baxayo. wuu noo soo baxay 4 daaqadood oo kala duwan buu noo noqday. halkan waa meesha laga arkayo muuqaalka jarjaraysa shaashada laga fiirinayo ama telefishinka laga fiirinayo halkan weeye. halkan waxa weeye meesha ay ka dhacaysay jarjaridda oo muuqaalka uu imaanayay. halkan waxa weeye project-igi iyo effect-igi iyo qaybo kala duwan meesha kala soo bixi lahayd. halkan waxa weeyaan waa waxa la yiraahdaa qaybta clip-ta la yiraahdaa amase markii aad doonaysid inaad aad wax ka bedeshid effect ku sameynaysid shaygii calaamadii meesha ka muuqan lahayd waa tan calaamadii wax farsamada qabanaysa halkaan ka muuqanaysa oo effect-yada ku sameynaysa. halkaan shaashadii isbedelkeeda kaaga muuqanaya. halkaan waa kii wax lagu jarjar waa meeshii muuqaalkii timeline-ka lagu jarjarayay. halkaan waxa weeyaan waa project-igi iyo qaybo kamid ah oo aad u baahatid si short ah u soo helaysid. qaybtan marka waxa weeyaan tool kala duwan weeyaan sida Photoshop-ka iyo barnaamijyada kale oo aad hore u soo aragtay amase aan hadda noo dhiman waad ku arki doontaa. maqaskan waa sakiinta waa tii codka markii ama muuqaalka lagu kala goynayo la isticmaalayo. qaybahan dhan soo kala waa la isticmaalay kuwa ugu muhiimsan waan isticmaali doonaa haddii ay baydmo. okay marka halkaan joogno waxaan doonaynaa inaan soo gashano muuqaal marka maadaama uu cashirka koobaad yahay. muuqaal haddaan doonayno inaan soo gashano file baan ku dhufanaynaa kadibna waxaan leenahay import oo ah soo geli. markaan import aan ku dhufano maxaa helaynaa meesha ka soo qaadan lahayd tag buu leeyahay oo muuqaalka meesha ka soo qaadan lahayd waa inaad tagtaa ditana aad halka ka soo qaadataa uu leeyahay. okay weji kale waxaad sameyn kartaa haddii tan kale ku soo baxdo meeshaan kale maxaa ku qoran library. marka calaamadahaas kale leeyahay madaxyadaas kale leeyahay tan soo ma jeedid multi browse uma baahnid kuwa waa iska cancel kartaa darteed waxa saas ugu dhufatid ayaa close oran kartaa panel-kan iga xir kana iga xir uma baahni saas u sameyn karaa. information-kan waa history-ga markuu hadhow waa shaqo qabato ugu soo bandhigaya asna iga xir uma baahni. effect-ga waa shay oo u baahan tahay kana uma baahni sidoo kale to history-gan uma baahni. adigu waxaad u baahnaa waa iska tirtiri kartaa ama meeshada ku jireen
laakiin adigu ujeedada aad leedahay waxa weeyaan lessonka projectigaaga meesha kugu jiro iyo effectiga labadaas inaa ilaalisid. haddaa weydid oo aad kasoo qaad haddii aad lessonkaagii aad kansashid, haddaa close garaysid, waa weyday meesha lessonkii kusoo galahayay, kana waa weyday, wixii dhan waa weyday, wixii dhan marka isku bixis bay noqdeen. halkaa ilaa halkaas waxay noqdeen wixii dhan wax isku bixisay noqdeen, oo meeshii codka lagu jarjarayay qaybtii kaleta waa la waayay, qaybtan iska dheeraatay. haddii rabto shaashadan waa guuri kadhaa oo tanay ku darman kadhaa, wareer badan baa kaa raacaya. waa qaybtan waa inaad samaysatid wey, qaybta waa inaad samaysatid oo aad dib ugu noqotid. soo ma aragtid maxaa sameynay? qaybtan oo kaleta way naga kansalantay, ka waran gacanta iga dhacday, tanna way naga kansalantay, tanna waa naga kansalantay, close bay naga noqotay. marka meesha codka lagu jarjari lahaa lama arko, ama shaashadii qaybtii wax laga arkaya iga dhuntay, oo wixii dhammaa way isku qaldameen. marka ha ku wareerin marka, oo ha ku dawaqino, hamoodin in shayga meel kale loo raadinhayo. kor baad u baxaysaa, madaxyadan kor kaaga muuqda maxaa weeye assembly, editing, color, effect, audio iyo qaybo kale halkan kusii maqan oo aad sii raaci kadib. marka qaybtan effect maxaan ku arahdaa, qaybtan la yiraahdo edit ayaa halkeedaas gujinaysa kore. marka halka gujiso waxaa leedahay reset save layer, igu dhufo, sideeda igu soo noqotay. sidaas aan u isticmaali karaa. mase waxaan leeyahay window, waxaan leeyahay workstation markaan araahdo edit baan ficta soo saaray, markaas ayaa sideeda kusoo helaya. marka waxaad sameynaysaa ku dhufo reset save dhe, kadibna waxaa kugu soo noqonaysaa sideeda horaa laga soo dhigaya. intaas marka problemka aad xalin lahayd weeyaan. markii aad doonaysa inaad marka muuqaal soo gashatid, waxaad isku qaban kadhaa controlka iyo aida oo u taagan kii hadda aan kuusoo sheegayo oo ah import. waa controlka iyo aida computerka ayaa isla qabatay. maxaa dhacday? wuxuu ku geeyey meeshii muuqaaladan kasoo qaadan lahaa. tan oo kale aan furay, kadibna muuqaalkan oo kale ayaan kusoo dhufsaday. maxaa dhacday? wuu wareegsanayaa, kadibna wuxuu leeyahay wuu soo galay, halkaanu ka muuqanaya. marka waxaan casharkeena kusii ambaqaadi doonaa hadduu ilaahay idmo casharada soo socda Adobe Premiere Pro aan ku ambaqaadi doono. haddaba la soco casharada taxanaha Class Academic and Technology oo aan doonayno in aan dadka xirfadahooda ku dhisno. design iyo weliba editing ayay iskugu jiraan casharada halkan ka bixin doono. kuwo kala doorana way soo geli karaan. haddaba haddii channelkani kugu cusub yahay, fadlan ha hilmaamin inaad subscribe saartid.